dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa habeen salaasa oo arbacii soo galaysa bisha juunna waa 19 sanadka 2018 qodobadaanu barnaamijka idinku haynana waxaa ka mida madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay heshiiska ay wada galeen Itoobiya waxa kale oo uu ka hadlay dagaalka tukaraq iyo darbiga belad xaawo iyo qodobo kale annagu markaa cid alla cidii maal gashanaysa dekedeena afar kaliya ma xitaa waxaan jeclaan lahaa inay ka bataan bacdama aan 3300 oo kilomitir aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer Afrika Shiinaha iyo Mareykanka oo dagaalkii ganacsiga ka dhex bilowday saameynta leeg ayuu adduunka ku yeelanaya mas'uul sare ayaa shaqadii laga eriyay dalka Sacuudiga ma qayb kamid ah baa isbedelka cusub ee dalkaasi ka dhashay madaarka Xudayda militariga Yemen ayaa qabsaday siday sheegeen waxa kale oo aanu idin haynaa waraysi aanu idinka qaadnay mid kamid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii muslim nacaybka ahaa ee dadka baabuurta lagu jeersiiyay masaajidka Finsbury Park ee London waxaad arkaysaa diimihii kale oo noogu yimi meeshii oo iyaguna fahmaya iyo dadkii aan islaamka aaminsanayn oo iminka fahmaya diinta islaamku inay tahay diin nabadeed wararkii ciyaaraha Senegal oo 2-1 kaga badisay Poland waa kooxdii ugu horeysay ee guuleysata kooxaha Afrika ilaa imika qodobo kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimo oo Axmed Cabdinuur isku soo dubarriday aniga oo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil aan idila socodsiinaya hadii ilaahay idmo caawa iyo caalamka marka hore waxaanu ku bilaabaynaa wararka BBC-da Cabdi Qaadir Yusuf Ali oo ku sugan studio-geena magaalada Nairobi ayaa inoo haya Cabdi Qaadir mahadsanid Cabdi Xaafid kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dadka laga tira badan yahay ayaa si kulul u cambaareeyay go'aanka uu dhowaan shaaciyay wasiir ka tirsan xisbiga midigta fog ee dalka Talyaaniga taasi oo ahayd in la tira koobi doono isla markaana la tarxiili doono dadka ka soo jeeda qowmiyadda Roma mid ka mid ah ururadani ayaa ka digay in tira koob waliba oo ku salaysan qowmiyad uu yahay mid sharci darro ah wasiirka arrimaha dibadda ee lagu magacaabo Matteo Salvini oo sidoo kale hogaamiya xisbiga ka soo jeeda dadka soo galootiga ah ayaa sheegay inay tahay mid nasiib darro ah in dadka qowmiyadda Roma ee haysta dhalashada Talyaaniga aan laga ceyrin dalka Mr Salvini ayaa hadalkan ka sheegay telefishinka dalkaasi Talyaaniga waxaan samaynaynaa sahan ku aadan xaaladda qowmiyadda Roma guud ahaan Talyaaniga si aan u ogaano cidda halkan ku sugan iyo inta tiradooday dhan tahay nasiib darrada jirta waxay tahay inaan ku qasbanaanno in dadka qowmiyadda Roma ay halkan joogaan sababtoo ah ma tarxiili karno ra'iisul wasaaraha cusub ee Malaysia Mahathir Mohamad ayaa sheegay in ninkii uu ka guuleystay Najib Razak uu mas'uul ka ahaa lacagta maqan ee loogu talagalay in lagu maalgeliyo dalka taas oo gaaraysa $2 bilyan Dr Mahathir ayaa sidoo kale sheegay in baaritaano ilaa iyo haatan la sameeyay ee ahaayeen kuwa macquul ah oo shakiga ka dhabayn kara waxa uu yiri Mr Najib xaaskiisa iyo kuwa kale ayaa goordhow la horkeeni doona cadaaladda Najib iyo dadka kale oo lagu eedeeyay lacagahaasi ayaa dhowr goor oo hore diiday inay ku lug lahaayeen musuqmaasuq lagu soo eedeeyay hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa shaaca ka qaaday inay aad u adag tahay in Yurub ay hal dhinac ka istaagto arrimaha muhaajiriinta hadalkan ayay ka sheegtay kulan ka dhacay Berlin oo uu ka qayb galay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxayna sheegtay in iyada iyo Macron ay iska taageerayaan qorshe loogu talagalay oo lagu adkeynayo soodimaha wadamada midowga Yurub ee ay la wadaagaan wadamada kale ugu dambeyntiina la taliyaha dhanka ganacsiga ee aqalka cad ee Mareykanka Peter Navarro ayaa sheegay in wadahadallo dhowr jeer oo hore dhex maray saraakiisha Shiinaha iyo kuwa Mareykanka ay noqdeen kuwa aan lagu guuleysan kuwaasoo lagu lafagurayay dagaalka ganacsiga ee u dhexeeya labada dal warkiina waa naga inta aan dib idinku celiyo Cabdi Xaafid iyo London aad ayuu u mahadsan yahay Cabdi Qaadir Yusuf Ali oo inala socodsiinayay wararka BBC-da barta Facebook ayaa dhegeystayaal sidoo kale toos noogala socotaan iminkana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka inooga hadhay halkani waa London
waa hagaag goordhow dhegaystayaal waxa aad maqli doontaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlay heshiiskii ay la galeen dowladda etoobiya iyo qodobo kale oo ka hadlay oo uu ka mid yahay dagaalka tukaraq iyo weliba gidaarka beled xaawo balse marka hore madaxa maamulka hawada howlaha madadaalada ee dalka sacuudi arabiya ayaa shaqadii looga eriyey wax u muuqda in ay iska hor yimaadeen dhaqanka dalkaas iyo isbedeladii ay keeneen wixii ka dambeeyey markii maamulkaasi la sameeyey 2 sannadood ka hor wariyahayaga arrimaha carabta sebastian ashar ayaa warbixinta noo soo diray waxaa inoo soo jeedinaya axmed cabdinuur maamulka madadaalada ee waddanka sacuudiga waxay dusha ka ilaalinayeen munaasabado bandhigyo iyo riwaayado casri ah oo markii ugu horraysay muddo 10 sano ah laga dhigay shaneemooyinka dalka dhammaan waxay qayb ka yihiin mashruuc isbeddello xoog leh oo uu wado amiirka leh dhaxalka boqortooyada maxamed bin salmaan waxaa u suurto gashay inuu ilaa heerkaas awooddiisa gaadhsiiyo ay aragtiyada dadka muxaafidka ah ka soo tageen cambaarayntii dhaqamada cusub ayna gaareen inay dhiiri geliyaan laakiin waxaa jira calaamado muujinaya inuu soo karayo arrintaas dhibkeedii warbaahinta sacuudigu waxay soo jeedinaysaa in sababta loo eriyey madaxii maamulka madadaalada ay tahay barnaamij toddobaadkan ay dhigeen haween ruush ah waxaa markiiba ka dhashay dhaleecayn baraha bulshada oo lagu sheegay in barnaamijkaasi uu xadgudub ku yahay dhaqamada sacuudiga carar noocaas oo kale ah ayaa horraantii sannadkan ka dhalatay markii shaashad telefishin oo aad u weyn lagu soo bandhigay musaaraco haween aan asturnayn mas-uuliyiinta cayaaraha ee sacuudiga ayaa arrintaas raaligelin ka bixiyey aad ayuu u mahadsan yahay axmed cabdinuur goordhow ayaa dhegaystayaal maqli doontaan wararka soomaalida uu ku jiro madaxweyne farmaajo oo ka hadlay heshiiska etoobiya iyo soomaaliya balse qaramada midoobay hay-addeeda qaxoontiga ee UNHCR ayaa sheegaysa in dadka guryahooda ay dagaalada ka barakiciyeen ay sii siyaadayso adduunka oo dhan warbixina UNHCR soo saartay ayaa lagu sheegay in dad ka badan 68 milyan oo qof ay adduunka ku yihiin qaxoonti dad magangelyo doon ah amaba barakacayaal 12 milyan dadkaas ka mid ah waa reer Suuriya mushkiladda ka jirta wadamada Kongo iyo Myanmar ayaa sidoo kale sababtay inay qaxaan 2 milyan oo rayid ahi waxaana sidaasi sheegay madaxa qaxoontiga ee qaramada midoobay Philip Grandi oo BBC-da u sheegay in dadka qaxoontinimada lagu qasbay ay xaq u leeyihiin inay qaxoonti noqdaan Mr Grandi waxa kale oo uu ka hadlay caqabadaha ku gadaaman soo galootiga Yurub tagaya haddaba maxamed maxamuud cadde ayaa sheekadan la socday oo goor sii horeysay iiga waramay waxyaabaha cusub oo cajiibka waxaa ka mid ah in dadka qaxootiga ee barakacayaasha ah in 70% in ka badan ay ku nool yihiin dalalka saboolka in dalalka reer galbeedka oo qani ah ay hayaan oo keliya qaxooti kooban oo fara ku tirisa lacagaha loo yaboohana in ay ka cagajiidayaan taana ay abuurayso culays dheeraad ah waxaa sidoo kale xusud mudan dagaaladii hore uga dilaacay meelo wadamo fara badan oo ay ka mid tahay koonfurta Suudaan Suuriya iyo maxaan ku raahdaa Yemen in ay wali dad barakicinayaan dalka Yemen wadanka gudihiisa ayaa dad fara badan ku barakacsan yihiin wadanka Suuriya dad fara badan ayaa wadanka barakacay intooda badanna waxay ku sugan yihiin wadanka Turkiga oo lagu qiyaasay ilaa 3 milyan iyo bar waxaa intaa dheer wadamada kale ee la xusay inay ka mid yihiin dadka barakacayaasha ay joogaan Soomaaliya Bangladesh waxaana muuqata in loo baahan yahay in dadku ay yaboohaan lacag si loo gargaaro ama loo caawiyo dadkaasi isla markaana xal loo leeyahay dagaaladii hore u jiray dheeraadeen waxaa lagu qiyaasay dagaalka wadanka Suuriya ka socda ilaa iyo 2011 in uu ka dheeraado xataa dagaalkii labaad ee adduunka dagaalka hadduu sii dheeraado culayskiis waa sii dheeraanayaan dadkana ammaan kuma helayaan hadday guryahoodii iyo wadamadoodii lagu celiyo waxaa kaloo muuqata in dagaallo hor leh ay bilaabanayaan sida Yemen oo kale waxa ka socda iyo meelo kale oo mataqaanaa adduunka ka mid ah hay-adanna waxa ay sanadkiiba soo saartaa warbixintan mar waxaana ay hadda xusaysaa in ay aad iyo aad u sii kordhayaan dadka qaxootiga ah waxaana xusud mudan dadka qaxootiga ah qaarkood marka ay barakacaan dhowr goor ayay barakacayaan oo meelo kale tegayaan
maxamed dalalka ay dadka barakacayaasha iminka ugu badan ka imanayaan south sudan ayaa ka mid ah iyadana Soomaa koonfurta Suudaan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo wadanka Yemen wadanka gudihiisa dadku barakacsan yihiin Suuriya weli colaadi waa socota Myanmar dadka Rohingya loo yaqaan ayaa ka barakacay oo Bangladesh tagay marka weli culayskii waa uu jiraa ayay leedahay hay'addu waxayna u baahan tahay in la iska kaashado caalamkana uu u dhug lahaado dhibaatada haysata dadkaas intooda badanna in ay joogaan 85% inay joogaan dalalka saboolka lagana yaabo inay wadamada dadka saboolka ay ku nool yihiin laftirkooda inay colaado cusub ka bilowdaan halkii warbixintan lagu sheegay maxamed halka aad iyo aad ayay mataqaanaa u fog tahay dagaalada haddii la xalin layahay nabadda weeye oo keliya waxa lagu soo celin karo sidii mataqaanaa dadku ay isu fahmi lahaayeen ama loo wada shaqayn lahaa inta colaadi jirto barakac iyo qaxooti waa jirayaan maxamed maxamuud cadde ayuu kaasi ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ka hadlay heshiiskii ay wada galeen dowladda Itoobiya waxa kale oo ka hadlay arrimo la xiriira dagaaladii ka dhacay Tukarraq iyo darbiga Beelad Xaawo madaxweynuhu waxa uu ka hadlay muuqbaahiyaha dowladda qodobada kale oo ka hadlay waxa soo dhageystay Mawlid Xaaji Cabdi oo iminka studio-ga ila fadhiya Mawlid aad ayaad u mahadsan tahay dadku waxa ay sugayeen oo dhegta u taageen heshiiska labada dal gaar ahaan arinta ceeriyaamaysan ee midowga Soomaaliya iyo Itoobiya ma ka hadlay muxuu kale ka hadlay cabdi xafid waa mahadsantahay madaxweynaha waxaad moodaa horta inta badan in uu aad iskugu diyaarinayay in uu ka jawaabo su'aalaha heshiiskaas iyo arrimo kala duwan uu kaga hadlayay kama hadlin oo kaliya arrinta Itoobiya sidaad xusay arrimo muhiim ah ayuu ka hadlay oo ay ka mid tahay xitaa dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya doorashada Soomaaliya lagu wadan ay ka dhacdo 2020 ayuu sidoo kale soo hadal qaaday waxa kale oo uu ka hadlay khilaafka u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka gaar ahaan shirkii magaalada Baydhabo dhawaan ku soo gabagaboobay qodobada kala duwan ay ku gaareen madaxda maamul goboleedyada waliba waxa la weydiiyay in shirkaasi uu ku soo beegmay heshiisna laga gaaray iyadoo uu jiray madmadow iyo khilaaf u dhaxeeyay isagoo arrimahaasi ka hadlay wuxuu yiri aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level Ethiopia aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa sidee u kala faa'iideysan karnaa Ethiopia maxay haysaa oo annaga u baahannahay annaga maxaan u baahannahay oo Ethiopia ay u baahan tahay xaqiiqatan waxaan ka arkay prime ministerku waji fiican oo u arko Soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyagana wax tari karno iyaguna ay waxna tari karaan marka taas waxay keentay Soomaaliya waxaan offer garan karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin bacdama ay yihiin landlord aysan dekada lahayn maxaan annaga Soomaaliya aan dhaqaalahooda aan ku kordhin karnaa waxa weeye waa dekadahaasna anagu dhaqaalo ma haysano iyaguna dhaqaalo uma haystaan ku dhisan laakiin waxa bilaabanaya markiiba haddii dekadahani ay ku wajahan yihiin inay supply gareeyaan 100 milyan oo Ethiopian oo aan dekada lahayn in dalal iyo shirkado badan iyo shakhsiyaad badan oo ganacsato ah ay maal gashadaan maxaa yeelay meeshaas waxaa jooga consumers badan ayaa jooga annagu markaa cid alla ciddii maal gashanaysa dekadaheena afar kaliya ma xitaa waxaan jeclaan lahay inay ka bataan bacdama aan 3300 oo kilomitir aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer Afrika madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo arintan uu ka hadlayay hadda aan idin maqashiina waxay ahayd arinta heshiisyadii ku saabsanaa dhaqaalaha iyo iskaashiga ee Itoobiya ra'iisul wasaaraheeda dhawaan magaalada Muqdisho markii uu tagay oo la gaaray waxa uu sheegay in arrimahan ay yihiin heshiisyo hore dhaca laakiin ay jiraan in ay jiri doonto in arintan ay tahay arin hore loo sii wadayo isla markaasna baarlamaanka Soomaaliya ee la horgeyn doono oo baarlamaanka laga doonayo inay ka doodaan arintii aan xuseynay maamul goboleedyada wuxuu xusay in khilaafka ay ka gudbeen isla markaasna ay u gudbeen in laga wada shaqeeyo danta Soomaalida taasi oo sheegay niyad wanaagna uu ka muujiyay sidoo kale
waxa uu ka hadlay arrimo ku aadan in uu jiro tartan dhinaca dekedaha oo Soomaalida markaa dekedaha u dhow sida Mombasa oo kale soo hadal qaaday iyo Djibouti oo kale ay jiraan tartan xoog leh isla markaasna wuxuu sheegay in hadda Ethiopia waxay kala hadlayaan ay tahay in laga wada hadlo iskaashiga dhaqaale halkii markii hore uu sheegay in Ethiopia lagala hadli jiray amni iyo arrimo kale madaxweynaha arrimo kale ayuu ka hadlay waxa uu yiri meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba la isku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiyey ma laha dekeduhuna Soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso ayay u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha Ethiopiana ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan Asia waxay ka imaan karaan khaliijka waxay ka imaan karaan Mareykanka waxay ka imaan karaan Afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimaddu waxay tahay waa la tartamaya madaxweynaha waxaa la weydiiyey su'aal ku saabsaneyd derbiga Kenya ka dhisayso xuduudda Soomaaliya Kenya u dhaxaysa gaar ahaan Beled Xaawo wuxuu sheegay in ay ku heshiiyeen madaxweynaha waddanka Kenya in derbigaasi dhismihiisa la joojiyo isla markaasna 6 bilood lagu sameeyo guddi daraasadna ku sameeya dibna loo soo celiyo ma aanu hadal qaadin madaxweynuhu in guddigaasi la sameeyay waxaadna moodaa in hadda laga soo gudbay ilaa iyo dhowr bilood xilligii madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya arrintaas heshiiska ay ka gaareen waxa uu ka hadlay ama la weydiiyay arrinta maxkamadda hortaal ee dacwadda badda ee Soomaaliya Kenya u dhaxaysa wuxuu sheegay in arrintan isaga ay ka horeysay xukuumaddiisii laakiin Soomaaliya ay taagan tahay in lagu kala baxo maxkamad wuxuu sheegay in dhawaan ama shalay oo kale ay u gudbiyeen maxkamadda caalamiga garsoorayaasha arrimo Soomaaliya ay ku taageerayso dacwadeeda Cabdi Xaafis su'aasha ay weydiisay ku saabsaneed arrinta midowga oo soo hadal qaaday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed madaxweynaha Soomaaliya arrintaasi ma una soo hadal qaadin kamana hadlin waxaan moodaa in uu ka gaabsaday inkastoo su'aashaasiba aan la weydiin wuxuu ka hadlay arrinta tukaraq dagaalka u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland waa nasiib darro waqtiga hadda aan ku jirno 28 sano ku dhawaad in weli dalkii uu dhiig bilaa macno ah oo runtii aan wanaagsanayn iyo conflict iyo colaad ay jirto waa wax runtii aad iyo aad looga xumaado waa arrintooda waa dhex galay waana la hadlaa si joogtaan la hadlaa waana isku dayinaan runtii wada hadal siiyo marmar waa ku guulaystay in xabad joojin la sameeyo in wax walba lagu xaliyo wada hadal iyo isfaham labaduba waa soo dhaweeyeen laakiin nasiib darro xabad joojintii iyo wada hadalkii ma sii shaqaynin oo hadda waxaan ognahay inay dad Soomaaliyeed oo walaalo ah halkaasi ay ku naf waayeen kuwa badanna ay dhaawac hadda yihiin waxaan ka codsanayaa ama u soo jeedinayaa ama aan ku baaqaya in ay wada hadlaan oo wax walba lagu xaliyo wada hadal iyo isfaham si loo baajiyo dadkaas waalaha oo muslimiinta dhigooda عبد الحافظ قدبينتي مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجي سؤال شخصيا أيا لويدي وحاليا مركا أي دعضو إن أريما مسيريا ودتكو أعدوا هذا الهيان والربو إن لو قادوا موقف كمدحوينها هي الدولة إنه كأمصو وحو الشيء إنه سقوا يهي مدحوينه ودنك ونقون يقفكو قدام بأريما قاركود كهلا وحو أماني رسول وزاري سو الشيء رسول وزارة في عنه يهي شغف في عنه وقبتي إسلام مركز إنه الدولة شرنشرة لهذا هاي أريما هالدورشة مرو كهلا وحو الشيء إنه كل جويين إن دورشة أي دعضو waqtiga lagu talagalay 2020 iyo arrimo caynkaasi oo kale aad ayaad u mahadsan tahay Mawlid Xaaji Cabdi ayuu kaasi ahaa qaar ka mid ah asxaabta Facebook ayaa isla mawduucan ra'yigooda ka soo dhiibatay Dayib Maxamed Caydiid Hargeysa ayuu joogaa hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu keenay buu yiri shaki weyn oo dadka Soomaaliyeed soo wajahay dawladda federaalka Soomaaliyana waxa aan leeyahay fallaari gilgilasho kaagama godo waxa la idinka rabaa in aad wax cad dadka aad u sheegtaan oo aad caddaysaan hadalka Dr. Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya halka bashka Cabdi Xasan faaraxo jooga Muqdishona uu yiri hadalka madaxweyne Farmaajo wax badan anigu uma arkayo inuu soo kordhinayo waa in baarlamaanka la horgeeya waxa
ay ku heshiiyeen labada madaxweyne sifo sharci ahna waa in loo maraa qodobada heshiiskaasi. maxamed nuur xasan muqdisho ayuu joogaa, isaguna waxa uu leeyahay waan soo dhoweynayaa hadalka madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ka hadlo hadallada maalmahan laysla dhex marayo baraha bulshada oo ay dad badani u fahmeen si khaldan. qaar ka mid ah asxaabta facebook ayay ahaayeen. halka aad dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c london. warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse sarkaal ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay hadallo cunsuriyad ah wasiirka arrimaha gudaha talyaaniga, hadallo uu ku duray dadka laga tirada badan yahay ee rooma ee talyaaniga ku nool. isniintii ayuu yidhi waa wax laga xumaado in aan la mustaafurin karin dadka roomada ah ee haysta dhalashada talyaaniga. wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini waxa uu gaaray go'aan ah in la taliyo dadkaasi ayna dhici karto in xubnaha jaaliyadda rooma la mustaafuriyo. wasiir Salvini oo ah madaxa xisbiga The League Party oo diidan dadka soo galeetiga ah ayaa ku dhawaaqay go'aanka mar uu muuqbaahiye laga wareysanayey. waxaa dalka talyaaniga ku sugan dad lagu qiyaasay ilaa 100,000 oo qof oo ka soo jeeda jaaliyadda Roma, 70,000 oo ka mid ah waxay haystaan jinsiyadda talyaaniga. wariyaha BBC-da ee Rome James Reynolds ayaa warbixinta noo soo diray, waxaana soo koobaya Cabdirasaaq Catoosh. Matteo Salvini horay uguma usan hadlin arrinkan sirta ahayd ee ku saabsan qowmiyaddan Roma loo yaqaano ama Sintiga. hadda maadaama uu dawladda ku soo biiray waxa uu sheegay in uu doonayo inuu ogaado halka qowmiyaddani Roma loo yaqaano ay dalka kaga nool yihiin iyo asalkoodii halka ay ka yimaadeenba. waraysi uu telefishin siiyey ayuu wuxuu ku sheegay in dadkan Roma loo yaqaano ee dhalashada talyaaniga haysta nasiib darro loo oggolaanayo inay dalka joogaan, balse kuwa kale la masaafurin doono, halka carruurtooda iskuulaadka ku jirana la geyn doono goobaha xanaanada carruurta. weli ma caddo sida uu doonayo Mr. Salvini inuu ku tiriyo ama ku xisaabiyo qowmiyaddan Sintiga loo yaqaano ama Roma loo yaqaano ee dalka talyaaniga ku nool. qowmiyaddan ayaa waxa ay ku nool yihiin dhul aan sharciyaysnayn oo xerooyin ah iyo weliba afaafka kore ee magaalooyinka waaweyn ee dalka talyaaniga ku yaalla. kooxaha u dooda dadka laga tira badan yahay ayaa waxa ay ku tilmaameen amuurtan iyada ah ee lagu beegsanayo dadyowgan asal ahaan meelo kale ka soo jeedo mid sharci darro ah. cabdirasaaqaad ayuu mahadsan yahay. rawdo axmed biixi waxa ay carruurnimadeedii iyada iyo waalidkeed ka qaxeen magaalada Kismaayo iyaga oo ku biiray qaxoontiga ku jira xeryaha Kenya, balse sanadkii la soo dhaafay ayay iskeed u soo noqotay iyada oo wadata 4 carruur ah oo leh xirfad ay ku shaqaysan karto. rawda waxay ka aasaastay magaalada Kismaayo warshad yar oo gurigeeda ku dhex taalla oo lagu farsameeyay shaambowga oo ay ka iibiso xaafadaha dariska ah. wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Adan ayaa dhawaan safarka ku tagay Kismaayo, waxa aanu ka warramayaa rawda. rawdo intii ay ku jirtay xeryaha qaxootiga waxay baratay sida loo farsameeyo noocyada shaambada, taasoo keentay markay magaalada ku soo laabatay inay gurigeeda ku samayso noocyada shaambooyinka ee dharka iyo guryaha lagu dhaqo. walxa kiimika ah oo leh cabirro kala duwan ayay isku daraysaa deetana iyadoo farsamadeeda adeegsanaysa ayay biyo ku daraysaa, taasoo qaadanaysa muddo ku dhow 2 saacadood si ay u soo saarto shaambo la isticmaali karo. rawdo haynooga sheekayso sida ay u samayso shaambada iyo cidda ka iibsata. shaambada ayaan guriga ku dhex samaystaa. shaambadina maxaa la dhahay waxay iga gato dariska dukaamada xaafadda guriga dhexdiisa la iga gataa. gurigayga noo joogaan samaystaa, aniga xataa waan isticmaalaa oo saabuunta suuqa ka soo gadanaya ayaan ka kaaftoomo iyo maadaama gacanteyda aan ku soo saartay anaa isticmaalo, dariska la isticmaalo oo laga gataa. maxaa la ayadana waxay ka kooban tahay kiimikadaas iyo xagan ka dirsada waa la iga caawiyay, waan keensaday saasaan u isticmaalaa. ayadana waxay ka kooban tahay 8 shay la isku daraaya. waa kiilo unguraal ah, kiilo UFC ah, kiilo oo salti ah, CMC oo 60 gram, toast soda oo 60 gram, catar oo 10 gram, kalar oo 5 gram, intaas oo isku daraaya. muddo 2 saac ka bacdi shaambada ay noqonaysaa. wixii ilaa ay calfan way ka gataa, wixii kalena anaa guri ahaanteeda u isticmaalo. tusaale ahaan toddobaadkii ama maalintii imisa caag oo shaamba ah ayaa iibkaysaa? waxaan iibkayaa ilaa 4 jirkaan 5 jirkaan oo noqonaysa 12 shaambada camal. intaa waa laga iibsadaa? waa laga iibsadaa, maasha Allah aad iyo aad laga iibsadaa. ganacsigan rajadaada muxuu yahay mustaqbalka xagee rabtaa inaad gaarto? maasha Allah mustaqbalka meel fiican inaan ka gaaraan rabaa. warshada yarta ay guriga ku dhex taalla inay ballaarato oo weynaataan rajaynayo hadduu Ilaahay idmo. rawdo waxay mustaqbalka ku fikiraysaa in warshadan yar ee gurigeeda ku dhex taalla u beddesho warshad weyn oo dad badani ay ka shaqeeyaan lehna macaash fara badan. rawdo
kuma ekaan inay farsamayso shaambooyinka oo keliya ee waxay wakhtigeeda uga faa'iidaysaa in gabdhaha kale ee ka soo laabtay xerooyinka qaxootiga inay barto sida loo sameeyo shaambada waxayna cashara ka bixisaa xarun ay maalgelisay hay-adda ARC. dadkan waxaa ka isticmaalaysiin waa salti oo cusbo kiil ayaa ka isticmaalaysiin CMC waxaa ka isticmaalaysiin 60 gram koosta soda waxaa ka isticmaalaysiin 60 gram barafum waxaa ka isticmaalaysiin 10 gabdhaha tababarka ku jira waxaa ka mid ah xabiib cabdilaahi oo sanadkan uun ka soo laabatay xeryaha qaxootiga ee Kenya waxay doonaysaa inay si wanaagsan u barato sida loo farsameeyo shaambada si mustaqbalka ay ugu aydo. marka koowaad waa inaan aniga aan ka faa'iido shaambadii suuqa aan ka soo gadanayay ee lacagtii iga bixisay aan gacantayda ku sameesto oo ku cilbaxo marka labaad sida aniga hadda la ii soo gacan qabtay oo wax la ii baraayo oo juhdi iigu baxay oo micnaha macallimiinta iyo hay'adda NRC iskaashatay ay iigu baxeen juhdi ana waxaan doonayaa jimka dambe inaan wax baro saddex inaan ganacsi ka sii sameeyo oo xarumo kale aan sii furto oo ka sii faa'iido si aan nolol maalmeedkii u soo saarto. in ka badan 50,000 oo qaxooti Soomaali ah ayaa si iskooda dalka ugu soo laabtay tan iyo markii ay bilowday hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR oo kaashanaysa dawladda mashruuca dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed. kumanaankaas kun ee soo laabtay intooda badan ma laha xirfado lagu shaqaysto waxaana lagama maarmaan ah in la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u maareeyaan ugana maarmaan gacan caawinaad. Ibraahim Maxamed Aadan BBC Kismaayo. sanad ayaa laga joogaa markii masaajid ku yaala xaafadda Finsbury Baariglankan la soo weeraray qof ayaa ku dhintay Cali Abubakar Xirsi waxa uu ka mid ahaa dadkii habeenkaasi ku dhaawacmay weerarkaasi goor sii horeysay ayuu iga warramay weerarka iyo sida iminka xaalkiisu yahay. xaalkaygu walaal aad buu uga soo raynayaa runtii iminka xaaladayda caafimaad aad bay u soo wanaagsanaanaysaa weli adigu dawooyin waan qaataa muxuu ahaa physiotherapy iyo waxyaabo caynkaasaan qaataa xaaladaydu aad bay caafimaad ahaan u soo raynaysaa insha allah waxaan rajaynayaa inaan si dhaqsaa uga wada bogsan doono. sidee ayay adiga Cali wax ku soo gaadheen? aniga walaal waxay ii soo gaadheen labada lugood ayaa gaadhigu iga jiiray markaa lug way jabtay ta kale iyaduna waxaa ku dhacay tissue damage baa ku dhacay dhaawaca iga soo gaadhay intaasuu ahaa. subaxii goor hore ayay ahayd markii ninkuu weerarka soo qaaday markii aad ogaatay in weerar jiro maxaad dareemaysay sidee bay wax kula ekaayeen? walaalow horta confusion badan baa dhacay confusion ka dhacay wuxuu ahaa markii hore ninku waana jiiray wuxuu noo jiiray inay accident ahayd iyo wax kale maanaan garanayn markii adigu qolyihii siyaasiyiinta ahaa Theresa May iyo Jeremy Corbyn ay ku dhawaaqeen inuu terrorist ahaa ayaa terrorist markaa loo qaatay argagixiso. waa hagaag ilaa iyo iminka markii dhibaatadii ku gaadhay iyo iminka hadday noqoto dhinaca dawladda hadday noqoto dhinaca jaaliyadda muslimiinta iyo Soomaalida oo iyada laftoodu ay halkaa ku badan maxaa la idin qabtay? runtii marka ugu horeysa anigu waxaan ahaa small groupka ordaya arrintan u ordaya waxaanu la kaashanay koox yaro hawshan u dhaqdhaqaaqaysa waxaanu la kaashanay masaajidada waxaanu la kaashanay muslim community-ga maadaama dadku ugu badnaayeen dad Soomaaliduna ay iska tahay dad aan cid matashaa jirin waxaanu la kaashanay islaamo weynaha marka waxaanu la kaashanay haddana diimaha kale guud ahaan jaaliyadda UK islintan oo dhan oo qabiil walba iyo cid jinsiyad walba ka kooban. marka ilaa iminka maxaa la idin qabtay? ilaa iminka annaga dagaalkayagu runtii wuxuu ahaa markii aanu intaa isu keennay in xaquuqda muslimka loo doodo oo waxaa dhici jirtay dad ICID layskaga shubo dad layska hatigo dad aragtidooda muslin ahaaneed la diido markaa runtii ilaa wakhtigaanu la kulannay Charles dhaxal sugaha waddankan wax badan baa isbedelay legislation badan baa la bedelay waxaa loo aqoonsaday inay ahayd argagixiso waad ogtahay ninkii waxaan midab kala sooca dadka madow ama muslimiinta cunsuriyadayn jiray iminka jeel buu ku jiraa. Cali Abubakar Xirsi ayuu ahaa oo ka badbaaday weerar lagu qaaday masaajid ku yaala magaalada London sanad ka hor maanta. wararka cayaarahana ciyaarta iminka socota kooxaha Ruushka iyo Masar ayaa wada ciyaaraya 27 daqiiqo ayaa ciyaarta socota ibir ayay maraysaa waxa ka horeysay Japan oo 2-1 Colombia kaga badisay. Senegal waxa ay noqotay kooxdii ugu horeysay ee Afrikaan ah ee tartankan badiya 2 gool ayay kaga badisay Poland oo waliba daqiiqadihii ugu dambeysay goolkaasi dhalisay dad badanna ay yara naxnaxeen. Axmed Cabdi Nuur ayaa barnaamijkaas ku soo dubariday anigoo ah Cabdi Xaafid
ayaa idinla socodsiinayay aad ayaa dhegaystayaal u mahadsantihiin mar kasta ballanteennu waa bbcsomaly.com waa inoo berito 7 subaxnimo xilligiina sidaas iyo nabad gelyo